xeebaha Soomaalida kalluumaysigu waxa uu ka yahay laf-dhabarta dhaqaalaha iyo nolosha bulshada. Kumanaan qof ayaa si toos ah iyo si dadban ugu tiirsan shaqadan, laga bilaabo kalluumaysatada badda gala ilaa suuqleyda, gaadiidleyda iyo maqaayadaha iibsha kalluunka. Halkani waa magaalada Boosaaso, halkaas oo saaka laga iibinayo kalluunkii xalay laga soo jiray badda. Suuqan waxaa maalin kasta isugu yimaada kumanaan qof oo bulshada ka tirsan, qaar iibsanaya, qaar iibinaya, halka qaar kalena ay nolol maalmeedkooda ka raadsadaan. Daraasadaha caafimaadku waxa ay muujinayaan in cunista kalluunka ay muhiim u tahay caafimaadka jidhka iyo maskaxda, maadaama uu hodan ku yahay borotiinka iyo omega-3 dabiiciga ah. Dhanka kale, kalluumaysigu waxa uu dhalinyarada u abuuraa shaqooyin sharaf leh, wuxuu yareeyaa shaqo la'aanta. Sidaas daraaddeed, horumarinta kalluumaysigu ma aha oo keliya koboc dhaqaale, balse waa maalgelin lagu xoojinayo caafimaadka bulshada, shaqo abuurka iyo mustaqbalka magaalooyinka xeebaha.